Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Full Stack Coder Camp. Kusoo dhawaada cashirkeenii koowaad ee Bootstrap iyo barashadiisa. Cashirkan insha Allahu tacaala wuxuu noqon doonaa cashir dheer oo aan kaga hadli doono sidii aad u baran lahayd ama qofka beginnerka ama bilowga u baran lahaa Bootstrap. Bootstrap muxuu yahay ayaa inaan ka jawaabno muhiim mudan. Bootstrap dhowr macno ayaa lagu sheegaa. Marka koowaad, Bootstrap waa CSS caan ah ama framework CSS ah oo responsive ah. Responsive waxaa laga wadaa ku shaqeyn kara mobile application ama desktop application ama PDA ama iPad ama tablet device ku shaqeyn kara oo haddana website ah. Waa website, haddana waa mobile application, haddana waxa weeyaan device kasta ku shaqeyn kara. Qeexid kale waxay tahay Bootstrap waxa weeyaan waa HTML, CSS iyo JavaScript framework caan ah oo loogu talagalay in uu responsive ka dhigo, meaning inuu ku shaqeeyo device kasta noocu dooniba ha noqdee, oo weliba qaybta mobile-ka ah xooga saarta. Ta ugu sii fudud ee anigu aan ku darsaday waxaa weeye Bootstrap haddaad maqashid waa CSS la ururiyey, classyo CSS ah oo caan ah oo la ururiyey oo diyaar ku ah oo aad isticmaali karto oo wax qoraal kaaga baahnayn. Intaa weeye manaha CSS saad cashirkii hore kusoo baranayba bilowga ahaa waa qurxinta website-ka, hadday noqoto colorka, bedelitaanka, hadday noqoto formatka, waxyaabahaas. Waad ogeedeen cashirkeenii CSS-ka markaan baranay iyo HTML-ka waqti badan baan gelinay in aan HTML aan meel ku qoray aan u bedelo wax qurux badan oo indhuhu qaban karaan. Marka waxay noqotay inaan CSS badan qoro. Bootstrap wuxuu kaa caawinayaa kalaasyada aad qoraysay iyo kuwo kaloo ka badan oo fara badan ayaa meel lagugu diyaariyey, waana kuu diyaar inaad isticmaasho. Qolo la yidhaahdo Twitter ayaa arrintaa keentay dhowr sano ka hor, runtiina aad ayaa loogu caanamaalay. Maadaama aan baranay CSS, Bootstrap wuxuu yahay inuu yahay CSS la qurxiyey oo diyaar ku ah oo kuu manaha kaaga baahan runtii waqti badan iyo inaad qortid. Haddaba qaabkee loo download gareeyaa ama loogu xidhaa website-ka? 3 nooc baa loogu xidhaa. Inaad aadid website-kooda oo kana getbootstrap.com. hadda versionka la marayo waa version 4. aan marka download aad samayso, haddaan ku dhufto hal mar ku dhufto linkigan igas aaday soo baxaya. waa kan Bootstrap getbootstrap.4.3 getting started download. So badankaas downloadka aad ku dhufanaysaa waadna download garaysanaysaa. Markaad download garaysato wuxuu ka kooban yahay dhowr file oo ah CSS iyo JavaScript uu ka kooban yahay. Marka waad ku xidhaysaa website-ka. Insha Allah qaabka lagu xidho casharada dambe ee ASP.NET MVC markaan baranayno aan real website oo database wata aan samayn doonaa inuu intus doonaa insha Allah, laakiin aad ayay u fududahay. Qaabka labaad waa inaad isticmaasho waxay dhahaan Bootstrap CDN. CDN waxaa waaye filekii ma download garaynaysa physically, laakiin asagoo online yaalaad ku xidhaysaa programkaada. oo qaabkaad ugu xidhaysa qaabkee waaye waa isla website-ki isaga haddaad tagtid waa kan Bootstrap CDN. CDN waa Content Delivery Network. Manaha waxaa waaye faylashii aad computerkaada ku shubi lahayd baa online yaala. Marka online baad ugu xidhaysaa, waxaad soo copy garaynaysaa on kan labadan file, then website-ka aad ku xidhaysaa, aad gelinaysaa. Qaybta korena waxaad gelinaysaa waa CSS-ka, qaybta hoosena waa JavaScript-ga. Marka labada qaab ayaa loogu xidhaa. Qaabka saddexaad oo ah inaad isticmaashid third party software registry tools, waxyaabaha softwarada kale ee download garayn kara scriptiga sida npm-ka, NuGet, Power, Yarn, Brew, kuwaas oo dhan. Mid kasta waxay yihiin cashirada kale ayaa lagu baran doonaa biidhnillaahi, laakiin waa qaab kale oo software loo download. Iyaga way kuu sheegay waa ka package manager npm haddaad isticmaalisid npm install, waxaad isticmaalaysaa command line-kaada Yarn haddaad isticmaalisid, Ruby Gem haddaad isticmaalisid oo ah Ruby luqadda Ruby on Rails baa isticmaashaa, NuGet oo Microsoft ay leedahay waa kan iyaduna. Marka intaasoo shay qaab baa loo download garayn karaa. Marka qaab kasta ay insha Allahu tacaala kama wada gaarno cashirkan. Inagu waxaan isticmaalaynaa midka caadiga la yaqaanay ah downloadka ayaanu isticmaalaynaa. Haddaba Bootstrap muxuu ka kooban yahay? Mukawanatul Bootstrap maxay tahay? waa 5 shay. waa layout waxay dhahaan, content waxay dhahaan,
component waxay dhahaan utilities iyo extend shantaa shay buu ka kooban yahay layout iyo mid kasta wuxuu ku saabsan yahay ayaynu fiirinaynaa marka si aan idin tusno waxaas mid kastaba waan soo koobi karin waxyaabuhu ka kooban yahay haddaan tagno contentiga oo kale content waxay ka kooban tahay farta iyo qurxinteeda farta iyo weyninkeeda ka yar iyo ku dhexe imageka waxa alla wixii table ku saabsan figures waxay dhahaan ama quote marka la qorayo kale waxyaabahaasi ku saabsan tusaalahaan hadda kan haddaan ku dhufto oo aan idin tuso waxa laga wado typography waxa laga wado waa wixii content ku saabsan macnaha contentiga aad qortay ee html-ka ee qoran ayaad markaasi wax ka bedelaysaa waa iga crash garbaan filayaa markaan xidhayaa waaka marka typography waaka marka wuxuu ku saabsan yahay waa farta h1 h2 heerarada soo baratay mid kastii qaabka loo bedelo waa very simple classkaad ku daraysa waa h1 h2 meeshii aad h1 qori lahayd oo html simple waxaad samaynaysaa paragraph class la h1 baa siinaysaa h2 isla sidii buu kuu sameynayaa si fartuu ku weynayna wuu ku yaraynayaa display 1 display 2 text inaad dhexda ka xariiqi kartid inaad delete gareyn kartid waxaas oo dhan buu kuu sameynayaa okay bal aan tagno image aan tagno haddaan image tago imageki waa kan responsive buu kaaga dhigayaa thumbnail buu kaaga dhigayaa ama qeyb maaragtay sida id oo kale buu kaaga dhigayaa wuxuu kaaga dhigayaa round geesuu kaaga jarayaa round left circle uu kaaga dhigayaa marka qeyb wax la wixii sawir ku saabsan classkan baa siinaysaa fluid img fluid responsive img thumbnail very simple insha allah aad baan uga hadli doonaa tables wixii ku saabsan tables waa waxyaabaha wax la geliyo markaas arday baad qoraysaa ama ganacsi baad leedahay waxaad rabtaa product inaad list geliso marka waa table waa ka first name last name marka waa table columnyadii rowyadii wax walba colorka xataa bedelaysaa bg dark table info table light ayaad ka dhigaysaa waad highlight garanaysaa very beautiful aad ayuu u qurxinaya farta insha allahu tacaala so that is content waxay ka koobantay component baa soo haray midka ugu caansan ee uguna badan waa component waxaa waaye wax diyaara oo aad isticmaali kartid minaha alaab diyaara oo lagu diyaariyay oo html-keedii wadata oo waxeedii wadato oo hal mar aad isticmaalayso waxaa kamid ah oo caan ah carousel oo ah sawirada aan isticmaali doono oo ah slideshow sawir website-kaada pagekiisa u horeeya waxaad gelinaysaa slideshow dhowr xaba smart waa kun html-kiisii wataa iyo wixiisi waa diyaarsan yahay waad copy garaynaysaa uun waxaad doontaad ka bedelaysaa sawirada doontaad gashanaysaa waa ka isaga oo hoosta ku wata indicators ama mid kasta meeshuu joogo waa html-ka lagu qoro diyaarsan iyo bootstrapka isku lifaaqan waa slideshowkii haddana mid kasta wato wax u gaar ah ama text u gaar ah ood isku xayeysiinaysid ayadna waa ku diyaar waa kada halkan component dhammaantood waa kuwan waxaan igu qoran meeshan ee aan soo koobigareeyey ayaga oo diyaarsan waa kuwan laftigana component kii horeen sheegay wuxuu ahaa content waa inta hadda idinka sheekeynay tables image figures component waa ka dangalo component alert waxa way markii aad wax u sheegaysid customerka waxbaa dhacay emailkaadu waa wrong passwordkaadu waa wrong waxaas oo dhan markaad leedahay batch waxa weeyaan markii aad waxyaabaha tirada oo kale iyo aad tusaysid notificationka oo kale 6 email baa ku yaala 4 text message baadan akhrinin waxyaabaha noocaas markaad leedahay batch ayaa la dhahaa calaamadahana leeyihiin info iyo warning bay leeyihiin number ayaa tusaysaa breadcrumb waxa weeyaan website-kaada meesha uu joogo ayuu tusayaa tusaale ahaan haddaad home ku dhufatid haddana aad sub url ama section aad tagtid wuxuu kuu sheegaya meesha aad maraysa website-kaada hoos kaaga sheegaya wuxuu leeyahay okay homekaad kasoo tagtay library aad ku dhufatay hadda page-ka aad fiirinayso waa ka haddaad doonto dib ugu noqon kartaa marka waxaa la dhahaa breadcrumb buttons baa kana cardkan aad baan u isticmaali doonaa cardka waxa waaye waa div wata image iyo text iyo button oo isla socda waa image saddex shay way waa imageka left uu mari karaa right ku mari karaa hoos baad geyn kartaa kor baad geyn kartaa text aad waxa wuxuu yahay ku sheegaysid iyo button haddii lagu dhufanayo marka asaga kala duwan waa kor ku wata waa kuwa kale oo wax wata aad ayaan u isticmaali doonaa drop downku waa button
leh waxyaabo laga dooranayo tusaale ahaan waa kan markii aad dooranaysid button drop down kana ku dhufanaysaa kana ku dhufanaysaa kana ku dhufanaysaa marka saad u aragtaanba html-ka kugu diyaarsan waayo waa lagu diyaariyey macal bootstrap-keeda marka component waa wax isku qoofalan oo diyaarsan oo marka hore ka isticmaali kartid forms haddaan tago waa formkii la buuxinayo waa kan markaad website leedahay username password login submit waa ku diyaar waa ka qaadanaysaa horaad ka isticmaalaysaa waxaad doontaad ka bedelanaysaa adaa xukuma navigation ama navka website-kaada wejigiisa hore ama menu waxa loo yaqaano ayaa laga isticmaala waa kuwa nav ayagoo kala duwan nav bar oo ayagana main menuga ama headerka hore waa kuwan website-kaada home nav waxaasi search manaha waa really very usable and mataqaan time saving waxaa weeyaan program way component aan iskaga gudubno waxaan tegaynaa hadda utilities iyo layout extend marka maadaama uu inoo furan yahay laga sameynaa xaga ku dhufto component waa kan layout aan tagno layoutku wuxuu ku qaabilsan yahay waa ka ugu muhiimsan runtii in aad kala qaybisid screen-kaada saan la soconnaba waxaa jira wax la yidhahdo diffku waa divider manaha html-ka lagu qoraa diffkaasi ayaa waxaad rabtaa inaad ka dhigtid 3 shay 1 2 3 column ama 4 column ama 5 column 12 baa ugu sareysa intuu gaari karo wax 12 ka badan ma jiro oo column so 12 ka column oo kowna ugu hooseeyo 12 ugu koreysa u qaybin lahayd screen-kii ama saddexdaad u kala goynaysaa 12 saddex u kala goy waa 4 iyo 4 iyo 4 hadda waa kan wuxuu leeyahay column sm column sm wuxuu u qaybiyay 3 row waxa saddex u qaybiyay min 4 miyaa iska garanaysaa waa kuwan screen-mada uu ku shaqeynhayo marka uu joogo 540 waa small markuu 760 pixels joogo waa medium large x large ama maaragtay x weeyaan marka screen-kaasi kala qaybintiisa hadhow baan si fiican u geli doonaa markaan si toos u sharaxno marka laakiin layout waxay kuu qaybinaysaa oo ugu muhiimsan inaad screen-kaada maamushid sida website-yada news-ka waad aragtaan screen-kooda saddex bay u jabiyaan gees yar oo liiqa iyo gees kaloo hagan iyo dhexdii oo ballaaran oo weyn sababka geeska waxay geliyaan wararkii hore kuwa xaggan waxay geliyaan wararka iyo cusub iyo sportiga dhexdana breaking news ka geliyaan marka qaabka loo manage gareeyo waa utilities baa soo haray utilities waxa waaye sidii aad website-kaada borderka diffka aad ugu samayn lahayd manaha geesaha stylekii border greena mid yellow oo ka soo border primary border success border danger radiuskii manaha radius waxa waaye wareega guud maxaan ku raahdaa shayga ama diffka bootstrap sidiisu diff ayuu shaqo ku leeyahay diffka ayaa u badan waxa uu isticmaalo marka sawir baad haysataa geesaad ka xoodaysaa circle baad gelinaysaa saas u yar ballaarinaysaa marka radiusku waa geesaha iyo qaabka loo manage gareeyo size-kii baa kuu soo haray iyo qaabka loo controlo waa waxaas dhan waxaa qabsan utilities waa kuwan marka iyagoo fara badan intaad doontaad ka isticmaali kartaa shading oo ah shadow iyo hooska inaad hoos u yeeshid manaha diffka hoos yar oo qurux badan aad u yeelatid overflow markii uu hal diff aad wax badan gelisid eed inuu calaamada kuu soo baxdo overflow baa la yidhaahdaa aad saa u fiirisid waa ku halkan aad ka waxaysanaysaa sizing iyo spacingka markaad samaynayso waa kun size-ka waxaad leedahay w width weeye 25 p waa waxaa weeyaan padding 3 manaha waa aad buu u macaan yahay markaad dhex gasho inline insha allah waxa dhan insha allah mid ayaan u dul istaagna intaan ka awoodno laakiin mar haddii 2 iyo 1 lagu sheego inta kale adiga ku filan ka u dambeeya oo I think waxaan is leeyahay extend waxa way icons waxay dhahaan iyo hoostaan filay inuu naga jiro extend waa kan waxa weeyaan icons manaha waad aragteen font awesome ay hadda ugu caansan isagu glyph icon buu isticmaalay kan font awesome isticmaalna haddaan ku dhufto waad aragteen in aad arkaysid waxyaabo text iyo sidoo iconadan website-ka inuu ku jiro waxyaabo bini'aadam u eg calaamado ku tusaya something waxyaabahan vehicle oo kale marka icons way ruux wajigi emojis maartay marka icon baa loo yaqaanaa website-ka gelinaysaa waxan marka insha Allah taala iyagana waan isticmaali doonaa intaas wuxuu ahaa bootstrap iyo intro marka dib hadda u noqdo bootstrap waxa way CSS la qurxiyay oo ku diyaara oo kugu shaqeyn karta mobile application-kaada desktop application-kaada iyo web application intuba iPad everything waxaad kasoo download gelisan kartaa getbootstrap.com waxaa iskale Twitter version-ka hadda la maray waa 4 insha Allah taala 5 shay ayaa ugu caansan layout content
component, utilities iyo extend ayaa ugu caansan. mid kastana haddii aad tagtid website-kooda caanka ah la yidhaahdo bootstrap.com oo midkana haddaad tagtid oo marka aad ku dhufatid get started oo halkana dhinaca laftiga ay kusoo fadhiisanaysaa layout, content, component, utility, extend. mid kastana waad fiirin doontaa download halkan aad ka download garaysan kartaa. insha allahu tacaala cashirkeena labaad ayaynu si fiican u bilaabi doonaa biidnillaahi. project shaqeynaya oo full ah. projectigaasi haddii aan idin tuso insha allah cashirkeeda idin kusi doono insha allah. Assalaamu calaykum.